dhaqanka siyaasiyiinta ururada bulshada rayidka iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jubbaland ayaa maanta ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka oo inta badan mas'uuliyiinta iyo sidoo kale ka soo qaybgalayaasha inta badan ay uga hadlayeen waxqabadka musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Salaado Omar ayaa inta badan ay ku sheegeen waxqabadkiisa iyo sidoo kale sida uu ugu habboon yahay inuu qabto xilka madaxweynaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulanka oo madasha ka hadlay ayaa sheegay taanayna uu yahay soo dhaweynta musharax Maxamed Omar oo musharax madaxweyne wuuna imaanayaa insha Allah waxa weeye wuxuu maanta ku baaqday arrin farsamo awgeed muddo dhowr wuu imaanayaa soo dhaweyntiina faraha badan ee farxadana waad ku mahadsantiin hal dadweynahan isbedel doonka ah ee ehelka ah ee meesha soo imaaday hal eray baan leeyahay annagu intiina soo imaad waxaan idin leenahay nabadgelyada lagu dadaalo macnaha rabsho annagu ma rabno nabadgelyaan rabnaa maamulkan iyo wax loo raadinayo iyo macnaha aan u doonayno isbeddelkan u doonayno waa nabad baan ku doonaynaa horumar baan rabnaa dadkeena wax loo qabtaan rabnaa in la isdilo ma rabno in la isfawdleeyo ma rabno in dhagax la isku tuuro ma rabno si walaalnimo ah oo ehelnimo ah oo soomaalinimo ah oo ismaqal ah oo waxqabad ah oo isgarabsi ah annagu sidaanaan doonaynaa haddii khalad aad aragtaan ha ku dayanina intaas dadkan ehelka aan nahay oo dadweynaha oo isbedel doonka aan leeyahay midda kale maamulkan aan hoos joogno walaalaheen ee hadda maamulka ay gacanta noogu hayaanna waxaan leenahay haddii aad wax noo soo qabateen oo horaan wax u soo hagaajiseen waan kaga mahadnaqaynaa haddii aad wax qaladeen haddii ilaahay u toobadkeen wixii aad qaladeen inuu ilaahay idinka cafiyo intaa kadib haddii caawa soor la kariyo oo gala saakina soor la kariyo oo soor lagu qadeeyo oo lagu quraacdo oo lagu casheeyo anytime soor kali ay noqoto macnaha naha ma yeelanayso waa in ay dadka isbedel helaan aad baad u mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah ee xilligan kulul ee u soo diyaar garowdeen inaad soo dhaweysaan murashaxa aad maxay ahayd door bidi lahaydeen maanta inuu idin hogaamiyo Jubbaland waxay u baahan tahay isbedel dadka iskama soo baxayaan murashaxiinta iskama soo istaagayaan Jubbaland waxay u baahan tahay isbedel inay isbedel u baahan tahayna waxyaabo badan oo cadeyn waa jira waxaan dalbanaynaa oo door bidaynaa in Jubbaland uu ka dhaco isbedel caafimaad qaba waxaan door bidaynaa oo dalbanaynaa Jubbaland in maxay ahayd la ogolaado inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah taas oo maxay ahayd sidii maxay ahayd madaxweyne Axmed uu soo hogaaminayay muddo 8 sano ku dhow maxay ahayd Jubbaland loogu ogolaado qofkii kale ee loo igmado inuu haddana sii hogaamiyo Jubbaland waxay u baahan tahay nabadgelyo Jubbaland waxay u baahan tahay horumar Jubbaland waxay u baahan tahay meesha la soo gaarsiiyay in horey looga sii wado waxaan codsanaynaa in la ogolaado Jubbaland inay doorasho xor iyo xalaal ka dhacdo waxaan codsanaynaa dadka murashaxiinta ah ee reer Jubbaland ee dhulkan u dhashay in aanan maxaan ku yiraahdaa lagu dhibaataynin dhulkooda Kismaayo ma aha jasiirad Kismaayo ma aha jasiirad badda dhexdeeda ku taala Kismaayo Jubbaland bay ku taala dadkana waa dadkii reer Jubbaland waxay doonayaan inay maxay ahayd isbeddelka dhulkooda qayb ka qaataan haddii doorasho xalaal intay dhacdo madaxweyne Axmed dib loo doorto waxaan ballan qaadaynaa inaan la shaqayn doono dadka reer Jubbaland waxay la shaqaynayaan madaxweyne Axmed sidii oo la soo shaqaynayeen mar hore sidoo kale madaxweyne Axmed iyo xukuumaddiisa iyo dadka la taliya waxaan ka dalbanaynaa in ay ogolaadaan in lagu la tartamo maamulka ay soo hayeen muddada in lagu la tartamo wax loo igmaday ayay gacanta ku hayaan Jubbaland waxaan ka doonaynaa inuu isbedel nabad qaba ka dhaco ayaan doonaynaa uu baaqday maanta sabab asaga aan ka imaanin buu u baaqday oo muxuu ahaayay meel kale ka yimid buu u baaqday xalay wuu xirxirnaa diyaar buu ahaa inuu soo baxo saaka laakiin kulay talooyin kale oo asaga ku yimid darteed buu u baaqday wuuna imaan doonaa asagoo diyaar ah isagaana muxuu ahaayay idin la hadli doono haddii alla yiraahdo sababaha baaqashadiisa haddaan wax yar ka taabto waxaa qayb ka ah magaalada Kismaayo ayaa qayb ka ah oo waxaad ogeydeen intii maalmahan ahayd oo dhanba haddaad fiirisaan social media iyo dadka sheekadooda waxaa iska soo dababaxayay qoraallo iyo muxuu ahaayay go'aamo ku saabsan xiriirka dawladda muxuu dhexe iyo maamulka Jubbaland ku saabsan baa soo baxayay kuwaasoo u arkaynay inta badan in loola joodo in loola joodo guud ahaan musharaxiinta Jubbaland ka tartamayso gaar ahaanna musharax madaxweyne
maxamed cabdullaahi omar in loola joogaan u arkaynay sidaa daraaddeed waxay arrintaa baaqashadiisa waxay ku leedahay arrimaha ayaga qayb bay ka tahay sababtoo ah annaga reer Kismaayo ama reer Jubbaland nabad baan doonaynaa ammaan baan doonaynaa horumar baan doonaynaa dagaal ma rabno fawdo ma rabno fidma ma rabno ninka tartamahayo muxuu ahay rabo inuu Jubbaland madax ka noqdo wuxuu doonayaa meel nabad inuu tago kursi nabad inuu ku fadhiisto inuu dadkiisa u maamulo inuu horumar ka shaqeeyo u baahan yahay marka marna suuragal ma aha marna kama suuragelayso nin musharaxa oo doonaya inuu dadkiisa xog qabto inuu fidma ka shaqeeyo marna ka suuragal kama aha sidaa daraaddeed barbagaan baa jira been badan baa jirta waxaan leenahay marka shacabka reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo in nabadda laga shaqeeyo in xaaladda la dejiyo in ammaanka laga shaqeeyo ayaa aad iyo aad muhiim u ah maanta waxaan isugu soo baxnay soo dhaweynta mudane wasiir maxamed cabdullaahi salaad omar oo ah musharax ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee maamul goboleedka Jubbaland waa muwaadin Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ah oo waay aragnimo iyo aqoon dheer u leh siyaasadda wax qabadkiisana la tijaabiyay labadii sano la soo dhaafay aan ognahay waxa uu gali karo iyo waxa uu gudi karo maxamed cabdullaahi salaad omar kursiga ugu sarreeya xilka micnaha maamulka Jubbaland buu u tartamaya maamulka Jubbaland waxaan leenahay raas Kamboni ilaa raas Casayr Soomaaliya inta u dhaxaysa waa la tartamaya kuraasta hoggaanimada waa lagu wada tartamaya haday tahay mid maamul goboleed iyo mid madaxweyne micnaha waxa waaye federaal intaba tartankii gobolada kale ee dalka ka dhacay ma Jubbaland ka dhici doona taasna cidna lama weydiin doono waxaan aaminsanahay rabitaanka ummadda reer Jubbaland buu ku socon doona waana la tartami ummadda rabitaankooduna uu meel mari doona Omarna shacabka reer Jubbaland baa raba ummadda reer Jubbaland baa rabta ummadda reer Jubbaland rabitaankoodana laba majar habaabin karo waxaan aaminsanahay oo micnaha u faraya fariintayda ah maamulka in aan shacabka iyo rabitaanka iyo ummadda waxa ay rabaan lama jar habaabinine hoggaanka 7 sano ay soo hayeen haddii maanta madaxweyne Axmed ay dadku rabaan ayaga soo ceshanayaan haddaysan dadku rabina markii sanduuqa la iskugu tago soo waliba shacabku ay soo baxeen 75 xildhibaan ay imaanayaan iyo rabitaankooda ka dhaxarki doona in micnaha waxa la jecel yahay iyo in la nacab yahay laakiin waxaan rabnaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo aan cidna lagu jujuubaynin oo amnigeeda uusan cid u aftuumnayn oo dadku wada tartami karaan oo garba siman leeyahay inay maamulka Jubbaland ka dhacdo xafladan maanta waxa loo qabtay mudane kamida mudanayaasha musharax oo xafladan maanta waxa loo qabtay mudane kamida mudanayaasha musharaxiinta u taagan kamid ahna dawladda dhexe oo wasiir ah cabdullaahi salaad omar oo ah nin adag CV-giisana maanta intuu xilka hayay waxa weeye caalamka oo dhan gaadhay muddadii hadda xilka uu hayay wuxuu muujiyay wacdaro caalami ah oo dalka Soomaaliya deeqay oo dibadda dadka jooga ay u riyaaqeen oo ummadda Soomaaliyeed anfacaya waa ninka hawadii Soomaaliya soo celiyay waa ninkii diyaaradihii Soomaaliya soo celiyay waa ninka waxyaabo badan oo hadda kale laga filan hayo sidaa darteed waxay dhaheen qolada Jubbaland oo uu musharax u yahay nimankii hore xilka hayay Jubbaland ma imaan karo Omar hadduu imaado waan dilaynaa waan qabanaynaa mana imaan karo Omar wuxuu ku dhashay Jubbada Hoose degmada Jamaa ku dhashay nin gurigiisa la yiri ma imaan kartid oo ma soo gali kara la yiri oo la yiri dawladda Soomaaliya dalka Soomaaliya xukuntay iyo waxa uu shaqeeyo toona ma imaan karaan waa arrin cajiib asaga kaliya ma waxa la farmaajo ma imaan karo oo rasuul saare Xasan Cabdullaahi Xasan Ali Khayr ma imaan karo oo wasiirada Soomaaliya ma imaan karaan oo ummadda Soomaaliyeed ma imaan kartaa le Jubbaland markii la yiri dawladda dhexe kama soo deegi kartaa airportka Jubbaland ee khaas ahaan Kismaayo waxa weeye arrin ah Soomaaliya kama tirsanin ma ogelin falaagaan nahay ninkii naga iska celin kara naga iska celiyo eegta maxamed qaasim cali waxar TV-ga Somali Cable magaalada Kismaayo